assalaamu calaykum akhyaarta. maanta waxaan la wadaagayaa waxyaabo naftaada halis gelin kara ama adiga ku dili kara. waxaa jira waxyaabo badan oo aad ogeyn oo naftaada khatar gelin kara ama ku dili karaba. haddaba maanta waxaan inoo sheegayaa 13 shay oo naftaada khatar gelin kara ama ku dili kara. waxaad maqashaa waxyaabo badan oo khatar ah. khatarta koowaad waa khataraha sunta ama sunta nooc walba ay tahay. waxaa jira sumo badan oo khatar ah oo mataqaanaa waxyaabo kala gedisan loo isticmaalo, laakiin dhammaantood ay wada khatar yihiin. haddaba iska ilaali sunta nooc walba ay tahay. haddii ay guriga ku taalo meel ay caruurtu gaari karin, iska dhig, adigana naftaada ka ilaasho. suntu way badan tahay, noocyo badan ayay leedahay. waxaa jira kuwo badan oo kuu sababi kara dhimasho ama naftaada gelin kara khatar aad u weyn. haddaba noocaas iska ilaali. khatarta labaad waa rinjiga. rinjiga waxaa ku jirta maado halis ah oo qofka bini'aadanka wadnihiisa xitaa istaajin karta ama qofka naftiisaba uu ku waayi karo. haddaba iska ilaali. rinjiga waxaa loo isticmaalaa guryaha. haddaba iska ilaali guri uu rinji ka qoyan yahay ama hadda la mariyey. weliga ha gelin oo khatar ayuu kuu keeni karaa rinjigaasi. khatarta saddexaad waa cayayaanka. cayayaanku waa khatar aad u weyn oo bini'aadanka xitaa dili kara mararka qaar. dad waxaa jira ay cayayaanku ka galaan dhagaha ama sanka ama afkaba. cayayaankaas dhammaantood qofka naftiisa waxay gelin karaan khatar aad u weyn. haddaba iska ilaali cayayaanka. waa khatar aad iyo aad u weyn oo weliba naftaada dili kara. khatarta afraad waa sunta suuliyaasha lagu dhaqo ama lagu nadiifiyo musqulaha. suntaasi waa sun aad iyo aad u khatara, waxaana ku jirta maado aad iyo aad u khatara oo dadka bini'aadanka u geysan karta naafanimo ama naftiisaba dhaafin karta. haddaba iska ilaali sunta loo isticmaalo musqulaha ama meelaha lagu nadiifiyo, meelaha bololay ama mataqaanaa aad u wasakhayso kale lagu qallajiyo ama lagu nadiifiyo oo loo yaqaano falaashta ama kuwo kale badan oo loo isticmaalana way jiraan. haddaba suntaas iska ilaali. waa sun aad iyo aad u khatar badan oo qofka bini'aadanka naftiisa dili karta ama u geysan karta disable inay qofka ka dhigto oo qofka xubnihiisa qaar ka mid a kala dhantaali karta. markaan ku leeyahay sunta falaashtu waa khatar, waxyaabo badan ayaa loo isticmaalaa sunta falaashta. iska ilaali marka. haddaba khatarta shanaad waa sunta cayayaanka loo isticmaalo. sunta cayayaanka waxay ka mid tahay khataraha aad iyo aadka u badan oo badanaa Soomaalidu ay ku dhaqmaan ama ay sameeyaan. khatarta sunta cayayaanka waa khatar aad iyo aad u weyn. qofka waxay u sababi kartaa dhimasho ama qofka inuu suuxo ama qofku inuu wadnuhu istaago. intaba way sababi kartaa. haddaba iska ilaali sunta loo isticmaalo cayayaanka. waa sun aad iyo aad u khatar badan. khatarta lixaad waa khatarta shumaca ama kandhalka oo nushidano ama mataqaanaa xalfadaha iyo waxaa loo isticmaalo. marka kandhaladu way kala duwan yihiin, kuwo way kala khatarsan yihiin, laakiin kandhalada qaar loo isticmaalo ama wadamada qaar Yurub baa laga isticmaalaa, Soomaaliyana qaar waa laga isticmaalaa. marka kandhaladan aad iyo aad ayay qofka naftiisa halis u gelin karaan, waana aad bay u khatar badan yihiin. kolley khatarta kandhalka ama shumaca anugu xog fiican kama hayo, laakiin wuxuu ka mid yahay waxyaabaha qofka naftiisa khatar gelin kara ama mataqaanaa qofku uu mataqaanaa kala kulmi karo dhibaato aad u weyn. marka kandhalka waxaan u malaynayaa kandhalku hadduu meel bilaa naqas ah ama meel mataqaanaa aan hawo lahayn haddii lagu daaro ama qofku uu waayo mataqaanaa meel aan dhehe ay ka dhacayso xoogay dabeel ah, qofka wuxuu u geysan karaa dhibaato sidaan u malaynayo. marka iska ilaali kandhalka ama shumacu khatar ayuu keeni karaa. khatarta toddobaad
waa khatarta sigaar cabidda badan. haddii aad joogtaysid sigaar cabidda ama aad si xad dhaafa u isticmaashid maadada sigaarka, waxay kuu keeni kartaa khatar aad iyo aad u weyn dhanka caafimaadka, ama halis ayaad ku geli kartaa caafimaad, ama waad u dhiban kartaa. sigaarku wuxuu ka mid yahay maadooyinka sanbabada waxyeeleeya, marka sigaarku aad buu u khatar badan yahay, qofka dhimashana uu sababi karaa. haddaba iska ilaali. khatarta sideedaad waa shidaalka ama gaaska ama batroolka, hadba sidaad u taqaanid. waxa ay ka mid yihiin khataraha ugu halista badan oo qofka bini'aadanka naftiisa dili kara ama dhibaato weyn u geysan kara. gaaska asaga ayaa wuxuu ka samaysan yahay khatar, oo khatar walba oo dhacda asaga ayaa kow ka ah, waxa uuna isaga ku jirina maba dhacaanba. marka maadadan gaaska waxay ka mid tahay waxyaabaha aad iyo aadka dangerous-ka u ah ama khatarta aadka u badan leh. marka maadadan gaaska iska ilaali. mar iyada khatara, mar iyada lafteeda khatar kuu keeni karta, mar iyadaaba khataraha mataqaanaa la falgelaysa oo mataqaanaa khataruhu ayadayba micnihii ka kaalin qaadanayaan. marka iska ilaali, maadadan aad bay u khatar badan tahay. khatarta sagaalaad waa khatarta baytariyada aadka u tanka weyn ama mataqaanaa enerjiga ama dabka ku jira ay aadka u weyn yihiin, waana baytariyaasha nooca loo isticmaalo mataqaanaa matoorada ama mataqaanaa elektroniga qaarkiisna loo isticmaalo. baytariyadan waa kuwo aad iyo aad u khatar badan oo qofka bini'aadanka naftiisa halis gelin kara ama explosion samayn kara ama qarxi kara. mararka qaar baytariyadan oo kale carruurta ayaa ku ciyaarta, marka ka ilaali, aad bay u khatar badan yihiin baytariyadan. khatarta tobnaad waa maadada geedkan aad u jeedaan. geedkan wuxuu ka mid yahay khataraha aadka u waaweyn ama sunta qayb ka mid ah weeye, ama waxaa laga sameeyaa sunta noocyada ugu halista badan. marka geedkan waxaa dhici karta marar badan inaad ku aragtay meelaha baadiyaha ama kaymaha. marka iska ilaali, geedkan waa geed aad iyo aad u khatar badan, waana sun. khatarta 11aad waa khatarta baabuurta, qiiqa baabuurta ama kaarboonka ka soo baxa baabuurta. kaarboonka baabuurtu waxa uu ka mid yahay khataraha aadka u weyn ama qofka naftiisa halis gelin kara ama qofka dili kara. qiiqa ka soo baxa baabuurka wuxuu isugu jiraa noocyo badan, weliba qaar waxaa jira halis ah oo mataqaanaa qofka naftiisa mataqaanaa u geysan kara mataqaanaa halis aad u weyn. khatarta 12aad waa khatarta maska ama mataqaanaa kobraha ama maska nooc walbuu yahayba. maska suntiisa waxay ka mid tahay khataraha aadka u weyn oo qofka naftiisa halis weyn gelin kara, weliba dhimasho loo badin karo. marka iska ilaali. khatarta maska waa nooc ka mid ah khataraha aadka u weyn oo bulshadu ay ka warqabto, laakiin khataraha ugu halista badan buu ku jiraa. khatarta 13aad waa khatarta shaawarka ama qubayska. shaawarka lagu qubaysto adigoo jirka uu furan yahay, ama inaad badisid shaawarka oo maalin walba aad ku qubaysatid, waxay sababi kartaa halis caafimaad ama waxay ku gelin kartaaba dhimashana way kuu sababi kartaa. marka ka taxadar shaawarka mararka aad ku qubaysanaysid ama marka aad isticmaalaysid. kolley dad badan ayaa waxay isleeyihiin shaawarku waxba halis ma geliyo, maalin walba waan isticmaalnaa, laakiin anigu waxaan ka soo xigtay khataraha mataqaanaa qofka naftiisa dhimasho u keeni kara ama halis weyn gelin kara. marka shaawarku wuxuu ka mid yahay khatarahaas qofka naftiisa halis gelin kara. haddaba la soco, wax walba waxay ku fiican yihiin inaad wax ka og tahay ama inaad la socon kartid dhibaatada iyo faa'iidada ay leeyihiin. shaawarku faa'iidooyin ayuu leeyahay marka laga hadlayo xagga caafimaadka. shaawarka waxaa la yiraahdaa dadka markii ay miisaankooda ay dhimayaan, marka inay badiyaan ku qubayska shaawarka ama ay maalin walba ku qubaystaan, wuxuu dhimaaba dhahaan xayrta ayuu ka dhimaa dadka. markaana khatarna uu ku keeni karaa, labada uu leeyahay. marka iska ilaali.